وأنا سلامة دمان صاحبتها كحنا جنال كنا بداية آدا يعني كجم هاد علينا سيد ونكسنا دول ساعتان مقالة برتان صادقو صادق هذا صاحب يالمان تحاربان يدلو تا حكي حقيقي وجارح فيلم كعان كاي ديلمان جيمور وميت من أفلام تجعلك وسمي جلاج عن كاي شهيد كبور حلي وفانك هندي وكعصبة مركان أجنا فيلم كان حوصاب حكوي صدق في ديسمبر سنة دي لابد أفرتي ديلمان جيمور معناه نحن نغني قلبي قاعد أيوب وجوبه هاي وعو جاميل كذا شهيد كبور سواء علي قان عيش التكية دول بجوش قبل لقوم قعاو قلشن جرافر يزرينا وهاب مركان أجنا فيلم كانوا حدارك تركا أم أجازمي لقوم قعاو أنا عندما ديفان وحنا سيدو كلا صار كأهني لقوم قعاو ناقل بنجامية markaan ayna filimka natiijahan waxa uu noqday film flop ah ama film guul dareystay waxaana ku jiro heese aad loo jeclaystay oo ay Soomaalidu qaar xilligii kuwa shaleemooyinka daawajinay aad u yaqaanaan markaan ayna saaxiibayaal xaqiiqooyinka filmka laga diiwaan galiyay ilaa iyo dhowr xaqiiqo ama shan xaqiiqo ayaan kaga eegi doonaa filmkan waxa leeyahay markiisa hore waxa sameyntiisa bilaabay ninka lagu magacaabo Tushar Kapoor ama wiilka Faris laakiin markii dambe uu iskaga baxay sababtan lama sheegin waa unknown fact markii la eego waxa lagu bedelay booskiisa Jilaaga Caanka Shahid Kapoor xaqiiqada labaad filmka waxa leeyahay markii hore magaciisa waxa la rabay in laga dhigo muhabbadkii laakiin markii dambe waxa la go'aansaday in laga bedelo magacaasi uusan fiicneen lagana dhigo Dillman Gilmore حقيقة saddexaad waxa leeyahay Salman Khan ayaa dooqa booska ninka lagu magacaabo Golden Grover ama Indhaxraar laakiin uu iska diiday kadib waxa la rabay in loo sii dhiibo Shah Rukh Khan asigana uu ka cagajiday ugu dambeyn waxa loo dhiibay ninka lagu magacaabo Golden Grover ama Indhaxraar waxa uu taqaan xaqiiqada afraad waxa leeyahay tishada lagu magacaabo Ray Mazin ayaa markii hore la rabay in loo dhiibo filimkaani laakiin waxa la leeyahay waa laga saaro kadib booskeeda waxa lagu bedelay gabadha lagu magacaabo Tulip Joshi حقيقة ugu dambeysay kala wadaagi doon filmkan waxa weeyaan waxa leeyahay filmkan waa filmkii ugu horeeyay iskala soo noqdaan Jilaaga Caanka Shahid Kapoor iyo sidoo kale Atijada Caanka Aisha Takiya hadaba saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa muuqaalka yaraa in kala wadaagay filmka caanka ah Dillman Gilmore fadlan hadii aad muuqaalka yeeshay noo saar janaanka dadku cusub tan ku soo beer lana wadaaga asxaabtaada xiiseeya sheekooyinka arrimaha aflaamta waa ku maasan tahay daawashada muuqaalkeena